إني تذكرت والذكر مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا كتاب كان الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن المجيد. ما أنتم حنسوق أن قاعدة أفراد كتابك تاصل مقعد لي هذا الربط بين الموضع المتشابه واسم الصورة، ومعناه نقول أيه إن الراديو علاقة أما حرير كدحين كره آيات متشابهة يا صورة أي كترته، وإنه تجدونات tusaalayaasha iyo tacriifka isla qaacidadan. laakiin intaa ka hor sheekhu wuxuu leeyahay qaacidadan waxay ka mid tahay qaacidooyinka ugu waaweyn ugu nafciga badan, waana mid aad ugu soo degdeg badan qofka inay xifdiyo oo maskaxdiisa ay maartay weelayso ama uu xifdiyo. waxaana u dardaarmayaa buu leeyahay walaalahayga inay qaacidadan ilgooni ah ku hayaan. sidoo kale sheekhu wuxuu sheegay in sheekh la yiraahdo Jamaal Cabdiraxmaan Ismaaciil kitaabkiisa الإيقاظ la yiraahdo kitaabka الإيقاظ la yiraahdo inuu sheekhaasi uu tusaalayaal badan oo qaacidadan ah uu ku keenay. laakiin sheekh Fawaas oo kitaabkan qoray inuu hadda dul taaganahay isagu ilaa 26 qaacido ayuu qaacidadan ka qoray. haddaba maxay tahay qaacidadan lambar 4 inoo fadhida maanta? sheekhu wuxuu leeyahay qaacidadan waxay tahay أن هناك علاقة في الغالب بين الموضع المتشابه واسم الصورة. بدنا أما أنت بدنا waxaa la helayaa cilaaqo ama xiriir ka dhaxeen kara suuradda iyo aayadda mutashaabiha ah ama kelmadda mutashaabiha ay ku jirto suuraddaas. cilaaqa la helay cilaaqo ama xiriir ka dhaxeen kara imma bixarfin mushtarik, xaraf bay wadaagi karaan, cilaaqadaas xaraf bay noqon kartaa, aw macna daahir ama macna daahirka aayadda uu ku tusinayo aayadda mutashaabiha iyo suuradda ayuu sheekhu dhahay, aw gayri dalika ama kuwaan ahayn sidoo kale. haddaba intaan uga gudubno tacriifkii iyo dardaaranka sheekha uu qaacidadan ka yiri aynu u gudagalno tusaalayaasha. sheekhu 26 tusaale ayuu qaacidadan ka qoray, 10 kamida ku soo dhawaada. tusaalaha koobaad Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waqaaluu laa tamassana an-naaru ilaa ayyaaman macduudah wa baqara. halka Aali Cimraan ay ka tahay dalika biannahum qaaluu laa tamassana an-naaru ilaa ayyaaman macduudaat. isku ekaanshaha qaacidadan aynu ka fiirayno waxa weeye kelmadda macduuda iyo macduudaat. dabcan labada aayadood intaan ka badan isaga egyihiin, laakiin qaacidada markaynu joogno macduuda iyo macduudaat ayaa maxal shaahidkeena noqonaya. waa inaynu fiirinaa macduuda iyo baqara xiriirka ka dhaxeen karaa ama isku ekaanshuhu xaguu ku jiraa. Aali Cimraan iyo macduudaatna xagee ayaa cilaaqada ama xiriirka ka dhaxeen karaa ama isku ekaanshaha laga helayaa. sheekhu wuxuu yiri markaad fiiriso kelmadda macduuda iyo ismu suura baqara labadoodaba waxaa u dambaysataa marbuuda macduuda iyo albaqara. saasaad ku xasuusanaysaa marka ilaa ayaaman macduuda maadaama aad baqara akhrinayso. sidoo kale macduuda iyo baqarahna waxay ka siman yihiin waa mufrad, labaduba waa mufrad ama waa keli, halka macduudaat ay u dambaysataa maftuuxa oo ah jamc mu'anath saalim. Aali Cimraan sidoo kale waa jamc. marka cilaaqada ka dhaxeen karta macduuda iyo baqara waa in labadooduba qoraal ahaan ta marbuuda u dambayso, labadooduna ay keli yihiin macduuda iyo baqara oo hal sac ah, halka macduudaat ay tahay jamac, Aali Cimraanna ay tahay jamac. tusaalaha labaad Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fi suurati al-anbiya wama khalaqna as-samaa'a wal-arda wama baynahuma laacibiin. halka الدخان أي كتهاي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. كلمة سؤال وحوي السماء يا السماوات. مركا إنه فيرنو أنبياء وما خلقنا السماء آية كتشرت آل عمران حكوا عفوا الأنبياء وما خلقنا السماء وهي همزة قدام بيسة. سيدوك اسم الصورة الأنبياء همزة قدام بيسة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وأنبياء. السماء همزة قدام بيسة، الأنبياء همزة قدام بيسة. مركا inaad ogaato mid kamida labada ay soo ka waxay ka caawinaysaa inaad midii kala garato, inaad midda koobaad oo anbiyaa waa horeysa. al-anbiyaa haddaad u heshay aayadeedii cilaaqo kala dhaxeen karta suuradda iyo kelmadda as-samaa iyo al-anbiyaa, maadaama labadooduba ay u dambaysa hamza saa ku xasuuso. tii kale markaa wamaa khalaqna as-samaawaati wal-arda wamaa baynahumaa laacibiin bay noqonaysaa.
hagaag tusaalaha saddexaad allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay kadalika xaqat kalimatu rabbika cala aladiina fasaquu anahum laa yu'minuun waa suuratu yunus halka haafir ay ka tahay wakadalika xaqat kalimatu rabbika cala aladiina kafaruu anahum asxaabu nnaar meesha isku ekaanshaha qaacidada aynu ka fiirina waxaa weeye fasaquu oo ah yunus halka haafirna ay ka tahay kafaruu marka xidhiidhka ka dhexeyn kara aynu fiirina markas iyo suuradaha fasaquu waa yunus sidoo kale magaca suuraddana waa yunus siin baa ugu dambeeya ama siin baa ku jira fasaquu xarfu siin baa ku jira halka yunusna sidoo kale xarfu siin uu ku jiro taasoo kaa caawinaysa marka inaad ogaato in kadalika xaqat kalimatu rabbika cala aladiina fasaquu ay tahay suuratu yunus okay kafaruu waa suuratu haafir haafirna magaceeda waxaa ku jira xarfu raa haafir okay tusaalaha afraad allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay fi suurati alancaam dalikum allahu rabukum laa ilaaha ilaa huu khaaliqu kuli shayin facbuduuh wahuwa calaa kuli shayin wakiil halka haafir ay ka tahay dalikum allahu rabukum khaaliqu kuli shayin laa ilaaha ilaa huu faannaa tu'fakuun waxaynu eegaynaa marka cilaaqada ka dhexeyn karta labadan aayadood iyo suuradaha ay ku kala jiraan waxaa horeysa aayadda laa ilaaha ilaa huu laa ilaaha ilaa huu suuratu alcimraan waxaa ku badan tusaalaha ugu fudud haddaan tan marno ad ku xasuusan kartaan marka laga soo tago sida shiikha uu maray tusaalaha ugu fudud aan isleeyahay dabcan insha allah wayna wada anfacaya waxaa weeye towxiidku waa waxa ugu horeeya ee qofka laga rabo laa ilaaha ila allah inuu ku dhawaaqo qofka gaalka ah ilaa uu kelmadda qiro dee ma soo gelin islaamnimadii laa ilaaha ila allah suuratu alancaam waxay ka horeysaa aynu ognahay tartiib ahaan suuratu haafir suuratu alancaam baa horeysa marka waxaad ku xasuusan kartaa in towxiidkuna uu yahay shayga ugu horeeya ee qofka laga rabo shayga ugu horeeya ee qofka laga rabo islaamnimadiisa sidoo kale suuratu alancaamna waxaa ku badan ka sheekeynta towxiidka haddaba maadaama suuratu ancaam dhexdeeda marka la joogo ay ku badan tahay ka sheekeynta towxiidka sidoo kale aynu ognahay in towxiidku uu yahay waxa koobaada qofka muslimka laga rabo sidaa darteed suuratu ancaam way ka horeysaa suuratu haafir maadaama towxiidku yahay waxa koobaada qofka laga rabo inuu islaamnimada kusoo galo sidaa darteed suuratu ancaam laa ilaaha ilaa huu baa soo horeysa dalikum allahu rabukum laa ilaaha ilaa huu khaaliqu kuli shayin facbuduuh wahuwa calaa kuli shayin wakiil halka haafir ay ka tahay dalikum allahu rabukum khaaliqu kuli shayin laa ilaaha ilaa huu faannaa tu'fakuun in la fahmay ayaan filayaa tusaalaha shanaad allah subxana wa tacaala wuxuu leeyahay suuratu الشعراء يحج لو آية كلا جروي كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين هلك حجرة كتا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين سلكناه ينسلكه بين ايجينا شيخ حجري سلكناه السينك وصهر ريو وشعراء كذلك سلكناه waxaadna ku xasuusan kartaa in xarfu siin iyo shiin ay isku xigaan ina siin ukhtu shiin siinka iyo shiinku waa walaalo dabcan waa laba xarfo isku xiga ayuu ka wadaa sidaa darteed markuu siinku soo horeeya xarfu siin kadalika salaknaahu waa shucaraa maadaama shiinka shucaraa ku jira iyo siinka aayadda soo horeeya salaknaahu ay walaalo yihiin inaad mid ogaatin waxay kaa caawinaysaa inaad tii kale ay kuu fududaato waxaana jirta qaacide la yidhaahdo shaygu shayga kale wuxuu kaga soo horjeedo baa kuu cadeynaysa marka haddii mid laguu sheegay waxay ta kale kaga duwan tahay waxaa kuu fududaanaysa inaad ogaato naslukuhu inay noqonayso suuratu alxijr tusaalaha lixaad allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay suuratu annaxl walow yuaakidu allahu annaasa bidulmihim maa taraka calayha min daabatin walaakin yuakhiruhum ilaa ajalin musamaa halka suuratu faadir ay ka tahay walow yuaakidu allahu annaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba marka waxaynu eegaynaa maa taraka calayha iyo maa taraka calaa dahrihaa sheikhu wuxuu leeyahay calaa dahriha waa suuratu faadir
اسكو حلكا أنه فيرنا حوي كلمة ظهرها بدأت بالضاء، حرف الضاء بيكون بالعامتي، ما ترك على ظهرها ضاء سادرتين حرف ضاء يضانه أيقنا هو ولا رأس هذا أن صامرني حرف السين يشين إنه ولا هاي أن سلكناه أي شعراء هل كان نسيدك على ظهرها فاضل كحسوسه إن أدمد أجاتن حكا عون ساتيك لا إن كوف ذاته فصالها تضبط الله سبحانه وتعالى وحوليه هي كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وأنعام هل كيونس أي كتا كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون اسكو كان شو مركب حوي للكافرين يا للمسرفين سورة يونس ومسرفين مقع يونس سين با كجرا halka مسرفين سين ku jiro cilaaqada ama isku xidhka marka aan raadinaynayo waa inaynu مسرفين iyo Yunus labada waa aan xarf siin ka dhaxelayno sida darteed waxa ku cadaanaysa inay kadalika zijina lil مسرفين ay Yunus hay takalana ay noqonaysa marka kadalika zijina lil kaafiriin an'am bay noqonaysa marka وهاجاك تسالها سيديداد وصدح آيادود كوكل جرى عراف يهود يشعراء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم طبعا صدحنا آيادود هل كلمة كبدا بيسجيجهين لكن قاعدة مركين نتشوغنو وحين يجينا دمات كآيادها صدح كلمة يكون دمادان أليم قريب يا عظيم أليم نربط ألفها بألف أعراف أليم همزة أيا كتشرتا همزة دا أنيم أي كبل عامته أما ألفك كتشرة يسيدو كأعراف ألفك كتشرة أي إنه حريرك كسر صارنا أليم أعراف لابد بهمزة كتشرة وحسوسنا هلك قريب أيضا كل أمانة سنة سيدو كله حرف باء وحكمية قريب باء قدام بيسا حرف باء وحروف القلقلة حروفta la qalaqalay ay kamid tahay sidoo kale suuratu huud daalka u dambeeyana idan xurufta aan naqaanay xuruful qalqalada saadalta cilaaqada ama isku xidhkaad ka soo saaraysa waxa weeye in qariib yahuud ad ku xasan sidoo kale huud waxa ku badan xurufta la qalaqaleeyo sida ba'da iyo daalka iyo jiimka iyo tsalayaasha kale xuruful qalqala aad wada garanaysaan iyo xarfihi kale ee ka koobnaayeen حروف القلقلة سيدو كلا حصوها على مركز دي إنه أليم إنه أعراف وهي قريب إنه هود عظيم بصوها على عظيم نربط بعين عينك عظيم كتير يا شعراء عينك كتير مركز شعراء وعظيم عينك كحسوسه أليم نسيدو كلا أعراف يا أليم لابد دبا ألفك كتير كحسوسه يه سورة هود ودالك حروف القلقلة وكمدي هاي هلك قريب أي كمدت هاي حروف حرفها القلقلة تصالح السقالات الله سبحانه وتعالى وحوليه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وقصص هلك سورة ياسين كتهاي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وهكذا دبا إنه فيرينو علاقة كلا دحين كرتا آيات والباء يسورة ديدة waxaynu ku hormaraynaa suuratu yaasiin suuratu yaasiin waxay ka kooban tahay magac ahaan yaasiin waa laba xaraf yaa iyo xarfu siin yaa iyo siin yaasiin sidoo kale min waa laba xaraf marka min ay soo horeyso markay min soo horeyso waa suuratu yaasiin wajaa min aqsa almadinati rajulun yas'a wajaa min waa laba xaraf yaasiin waa laba xaraf oo ismu suura ah saasaynu marka cilaaqada ama xiriirka ka dhaxeen kara آية يا آية متشابه سورة يا آية متشابه أنا صارنا سادلت حكوف وذان سمرك إن أوجات وجاء رجل من أقصى المدينة مركل له رجل كصاهر الريو ومنته أيضا بيسو إن نقول سو قصص هل كان من هذا صاهر سنة ياسين أي نقول سو ما دام ياسين أي كقومة لبا حرف كما جعهان سورة دهان من أي كقومة لبا حرف تصالح طبنا 10 كان وجودا بإن شاء الله قاعدة قيبتين وحوي الله سبحانه وتعالى وحولي بل أنتم قوم مسرفون أعرافه هل كسورة شعراء كتب بل أنتم قوم عادون نمل كتب بل أنتم قوم تجهلون وصدح سورة ضد وأعراف يا شعراء يا صوت النمل على غير مركب اسكف ضد تسالياشي ما دام كون مدوي عن سوامرني وحين اجينا مسرفون وأعراف يو وحكى دحين كره isla suuratu acraaf
musrifuun fa baa ku jirta musrifuun xarfu fa baa ku jira acraafna fa baa ku jirta bal antum qowmun musrifuun marka saas acraaf bay ku noqonaysaa bal antum qowmun caaduun cayn caaduun kelmadda caaduun cayn bay ka bilaamataa waxaynu ku jirtaa shucaraa shucaraana waxaynu ka helaynaa magaceeda xarfu cayn bal antum qowmun caaduun waxaa kuu soo haray bal antum qowmun tajhaluun tajhaluun iyo namli laam baa ku jira tajhaluun annamlina laam baa sidoo kale ku jira markaas mid walba cilaaqada kala dhexeyn karta suuradda iyo aayadda mutashaabiha ah saas ayaa lagu soo saarayaa casharkeeni maanta intaas ayuu ku egyahay 10 tusaale sheekhu ilaa 26 tusaale ayuu qaacidan ka qoray 10 kamida ayaan soo gudbiyey qaacidada magaceedu ahaa arabdu bayna almawduc almutashaabih wa ism as-suura in la raadiyo xiriir iyo cilaaqa ka dhexeyn karta kelmad meesha mutashaabih suurada mutashaabih kelmadda mutashaabih ah ee ku jirta suuradda ama aayadda qaybta mutashaabih ka ah iyo suuradda ay ku jirto in cilaaqo iyo la raadiyo xiriir ka dhexeyn kara 10 tusaalena kulli inaad ku fahanteen ayaan rajaynayaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu